waxaa magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ka furmay ciyaaraha kubadda kolayga ee bariga iyo bartamaha Afrika. Furitaankan ayaa waxaa ka soo qayb galay wadamada Zone 5 ee ay ka mid yihiin Kenya, Masar, Rwanda, Soomaaliya iyo Uganda. waxaana furitaanka ciyaaraha lagu bilaabay kooxda qaranka Masar iyo Rwanda ee ragga waxaana guusha halkaasi ku raacday kooxda qaranka Masar. tartankan ciyaaraha kubadda kolayga ayaa waxaa ka mid ahaa kooxda qaranka kubadda kolayga ee Soomaaliyeed waxayna ciyaartii ugu horeysay la ciyaareen wadanka Uganda oo ah wadanka lagu qabanayo ciyaaraha sanadkan. xulka qaranka kubadda kolayga Soomaaliyeed ayaa garoonka ku soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan. laakiin guushii waxay halkaasi ku raacday wadanka Uganda. ciyaaraha ku xiga ayaa la filayaa inuu qaranka Soomaaliyeed la ciyaari doono ciyaartooyada wadanka Kenya maalinta berri. ciyaarahan ayaa sanad waliba lagu qabtaa meel ka mid ah qaaradda Afrika. Iglan Saalax Ali Kalsan TV, Kampala.